Burco waxay ahayd waayadii hore magaalo lagu xasuusto suugaanta dhaqanka iyo sidoo kale ciyaaraha kubadda cagta muddooyinkii u dambeeyay waxa ku yimi hoos u dhac ka soo wajahay xasuusihii iyo waxyaabihii lagu yaqaanay haddaba hoteelka haas ee magaalada Burco waxaan waraysi kula yeelanay abwaan Cumar Ismaaciil Cali Cawriye oo ka mid ah hobolada ilaa hadda dabada sii haya Fanki Burco waxaana uu gudoomiye u yahay koox ka mid ah kooxaha fanka ee ka jira gobolka Togdheer ugu horeyn waxa uu noo sharaxay sababaha hortaagan horumarka dhinaca faneed ee gobolka Togdheer Ariel TV waa mahadsantiin aad fanka gobolka waxay ga weydiisay halku aa ka leeyahay waxa weeyaan baraarujin la'aan haddii aan la baraarujin oo fanku wuxuu leeyahay aabbo iyo hooyo waxa weeyaan calanka iyo madaxweynaha ayaa u dhaxeeya waayo waxay u shaqaynayaan calanka iyo madaxweynaha wixii ku dhex jiray oo dalkiya marka waxay u baahan yihiin aabbe iyo hooyo sida uu lahaan jiray berigii hore anigu kuma jiri jirin waxaan la jaan qaaday ka Burco marka wacyigelin la'aan daryeel la'aan baa dhigtay maanta fanka gobolka Togdheer halka uu taagan yahay eegsanaa ee Somaliland soo mara ama gobolada soo mara ayaa ka soo baxay oo ay ka mid yihiin jilaayada waaweyn heesaaga waaweyn laakiin itaalka yagii oo anigoo intaa u aabbaha halkii aanu ka soo amba qaadnay iyo halkaanu maraynay baritaarkii waxa laga waayay waxa weeyaan xagga bulshada laga waayay xukuumadda iyo cidii taageeri lahayd magaranaysa fanka iyo sportska iyo dhaqanka iyo wixii la mid ah sidii xukuumadii hore uga faa'iideysan jireen halku aakileeyay waxa weeye wixii garbaha qaban lahayd ayay leeyihiin kooxda walaalaha Togdheer oo kale midna ilaa 4 kooxood oo kale gobolka waa ka jiraan oo walaalaha Togdheer ka yimi marka fanka gobolku halku aakileeyay walku sports kale aakileeyay aan doonayno maanta in wax laga qabto xukuumadda cusub musabbiixi cabdi iyo golihiisa wasiiraduba ay wax ka qabtaan wariye weli ma jirtaa wax idinkooda wax ku doonaysaan ama codsiyaho arrintaas ka hadashay waxa jirta way jiraan marka deena la bartay codsiga waxa weeyaan halkan marayo halka cabdi wadaad yar marayo halka qadar maxamed yaasiin marayo halka jawaani sooraan marayaan waxa weeyaan waxa maraya kooxdii 6 nin oo fanku aabihiisu waa abwaanka iyo musicianka iyo mlaxamka 6 nin oo heesaayo oo musician oo Europe iyo Africa ka tuma ayaa ka soo baxay metel gobolka Togdheer waxa jooji waayay de markay gunno yar waayeen codsigii aanu la tagno wasaaradda aanu noo shaqaaleeya annagoo weli la taagan imankana aanu dhaamiyaa inta loo shaqaaleeyo marka codsigina laga diido dawaan daalla abwaanka ayaa geesta kale nala wadaagay qaybo ka mid ah suugaantiisa oo bulshada ku baraarujinayo waxaan idinka taabsiinayaa heesta uu qaasin jaamac xujaale qaasin macruuf uu qaado oo macno badan ku dheeyo heesta magaranaysa bulshada boqolaal kun oo sanaynu ka baahannahay yaa dhulkeena barwaaqada wallaha boqorka ay dhigay heestaas waa heesta nuxurku ku dhayahay waxaanan oran lahaa wax kastoo bilownaba bisinka u horeeyay beel laga xijaabo bir lab cadowga laysoo beedbeedi weeye bulsho yahay baraaruga reer Burco baraaruga burhaan gaar ahaan oo bini'aadmiga qura boqorku ugu deeqiyo wuxuu ficil burburiyaa baabiinaya gabi buur aad u weyn oo baahiyo tilmaantu bartankeeda jeexaa wixii looga baahdiyo bina dhaxalgelaysiyo bustaan raaxo badan iyo beer laga samaystaa bulsho yahay baraaruga reer Burco baraaruga baastada Roomiya Hindiya Paris laga keenay iyo Brazil way fogtay dhulkiina ka beerto oo inta baaqbaaqataan inta badar daadisaan biyaha ee beesarana baryadana waa lagu helaa bigeyska cadaysto bislaysta waxa cuntaan dalkeenna barwaaqada dad iyo barijiifta jeer dadkiisu la soo baxaan bukaan iyo xanuun iyo baryo iyo dhiib shaxaad iyo baahida way taagan tahay sidii looga baxayayna bulshada aan wax u sheegno maanta aan baraarugno halka aan ka bilowno ballantii madaxweynaheenna berigii lagu doortay iyo baaqiisii aynu rumayno oo barbarkiisa istaagno beera aan qodanno oo badar aan guranno oo bigeyska aynu cadeyno oo ugu dambeyntii waxa uu abwaan Cumar Cawriye baaq u diray colaadaha ka soo cusboonaada degmada Ceelafweyn ee gobolka Sanaaga reer Ceelafweyn ayaan leenahay baaqana waanu sii direynaa halkaas kooxdaasi ay isku raacaysaa abwaanadaahi ilaahay waxaanu ka baryaynaa inay nabarka keliya ugu yaalla waa halkaas inuu ilaahay dawo nooga dhigo baleeg waxa isdiray abtiga iyo aabbaha meedadka yaalla agtaada waa ilmaabtiyada iyo habar wadaaga ilaahay ka baqa oo naga joojiya maxamed mataan gabalaax maxamed mooto Ariel TV magaalada Burco